walba qofka sawax waa wajigiisa wax walba ku joogan fahanta marka wax walba yaan lahayn xataa walaaltinimada waxa inay taageeraan rabo xafsaniyadsan waa gabar naafa oo ku nool magaalada Muqdisho mararka ay fursad leedahay waxa ay jeceshahay inay asxaabteeda waqti kula soo qaadato goobaha loo dalxiis tago waxay aad u isticmaashaa aaladaha kala duwan ee social media si ay nafteeda dhirigelin uga qaado erayada wanaagsan ee ay u soo qorayaan dadka magacayga waxa la dhahaa xafsaniyadsan waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho waxaan isticmaalaa YouTube iyo TikTok social media ku jira adamdo sanadiyada jooga laakiin horumarkan filayo ma ka gaarin sidaan filayana wax ma noqonin waxa igu dhaliyay maadaama aan nahay aniga aan kamid ahay dadka baahiyaha gaarka qabo waxa igu dhaliyay inaa dadka guriyaha ku jiro kaleeto oo banaanka soo bixi karin social media isticmaal aqoonin ina isqarinayo kale kalsoonida leeyahay dadkaas kaleeto ina dhiirigelin u sameeyo oo macnaha hadana dadka kaleeto sida macnaha ayaka caadinka isku socod caafimaadka qabo aan u noqdo tusaale wallahi ani iska dhiirigelin iyo ina ku dhex jiro oo bulshadaas meesha imaaday dhiirigelin ina sameeyo oo ina wada noolaa karna dadkan macnaha lixaadkooda caafimaadka qabo dadka isku wada mid ma noqdo dadka isku wada mid maahan dada macnaha waxay ku dhigi karaan bayti ina familtihiin maxaa iskaga dhigdhigaynaa foo kale kursiga waxa ku saaray dadna waxay ku leeyihiin ilaaha ku caafiyo ku duceynayaan dadna waxa ku soo dhaweynayaan dadna ma kala jecelaba inay joogto in kale marka bulshada isku mid ma aha ku farxa maxaadii wax ka sii koreeyo wad farxay maaha marka dhiirigelin si helay ina wax sii badida helay laakiin markii hore u soo weydid waxa saleedahay dadkii macnaha adiga kuma rabaan macnaha ina soo gasho social media wallahi xaafada iska joogay macnaha ina wax qaban karo kale marka arko waxaan qaban karay aan qaban jiray wax barashada kale markii hadana dib uga dhacdid oo meel walba laga dhahay saanata naafatahay iska joogtid oo kale hadda waa iska soo dalxiisada xatee ma aan aadi jiray guriga iska joogi jiray dad marka ila midaha jiro sama oo sida ahaa jiray asad xaajiyo kale firdaws inda qalbiyo kale badan yahay xogaa dadka kii kale takaashiyo kale marka dadkaas marka aragtid maxaa dareentay waa fi wada waxaan ka helaa dhiirigelin infant dhiirigelin inay haystaan Soomaaliya sidaas kale in aan dhiirigelin oo macnaha aan jecelahay inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliyeed waxay isdareensiyaan inaysan xaq u lahayn sida dadka kale helitaanka wax walba oo ay nolosha bini'aadanka ku horumarayso balse Xafsa ayaa isku dayaysa inay aragtiyahaasi ku bedesho kuwa ka soo horjeeda sida inuu qofka naafada hadii uu dadaalo uu ka hormari karo qofka uu lixaadkiisa dhameystiran yahay ani ina macnaha ka shaqeysto oo anigoo fadhiyo maadaama aan magaalka geli karin aan ku helo dadkan aan dhiirigeliyo hatta aan wax ka helin hatta dhiirigelin inta kale oo guriga ku jirto kala ama ay daawadaan dad ani ila mid ah hatta ay ku dhiiradaan taas wallahi wax walba qofka sawax waa wajigiisa wax walba ku joogan fahanta marka wax walba yaan lahayn hatta walaaltinimada waxa inay taageeraan rabo talent ka sadaan leena xatay dhiirgelin ay sameeyaan runtii waa tallaabo aan oran karno waxa ku dayan kara dadka kale ee baahiyaha gaarka qaba ee guriyaha isku nabaya Xafso waxa ay mudan tahay inaynu garab ku siino social media iyo wax walba oo ay danaynayso si ay wax ula qaybsato asaageed